wad salaamintihiin meel kasta oo daafaha dunida aad ka joogtiin waxaan idin leeyahay nolosha idin wacnaato maanta waxaan diiradda saari doonaa taxanaha Squid Game qaybtiisa labaad wax kasta oo aynu ka ognahay iyo goorta la soo deyn doono fadlan intaynan gudagelinna waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo taabatid mahadsanid haddii aad heshay fursad aad ku daawatay iyo haddii kaleba waa hubaal waad maqashay taxanaha Squid Game waa taxane South Korean ah oo ku saabsan 456 qof oo la durufaysan waayaha nolosha kuwaas oo loo qabtay tartan leh dhimasho oo la ciyaarayo ciyaar caruureed waxa la rabaa kaliya hal guuleystay 456 qof abaalmarin ahaan qaadanaya lacag ka badan 30 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxaana ku guuleysanaya jilaaga taxanaha Sing Gi-han taxanaha waxa soo baxay 17 September ee sanadkii tagay waxaanu noqday mid nambarka koowaad ka gala taxanayaashii lagu daawashada badnaa in ka badan 90 dal ayaan laga daawaday dhab ahaantii caanimada Squid Game waxa si dhaqso leh u noqotay mid laga fikiro in laga sameeyo qaybo kale jidkan uu marayna waxa hore soo maray taxanaha kale ee Strange Things kaasoo soo baxay 2016 marka la arkay taageerayaasha badan ee dunida ka helayna noqday in 3 season laga sameeyo halka seasonka afraadna uu diyaar yahay lana sugiyo kaliya soo saaristiisa waxaan la filayaa inuu soo baxo bilowga sanadkan cusub ee 2022 waa kuwan wax walba oo aynu ka ognahay mustaqbalka Squid Game ee Netflix su'aal la weydiiyey halabuuraha taxanaha Mr. Hwang Dong-hyuk ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in bandhigu soo laaban doono si kala dii loo dhigana ciyaarta uu caanka ku noqday ee Greenlight ay soo laaban doonto sidoo kale Mr. Dong-hyuk isagoo ra'iisul siinay Times of London inuu hayo fikrado ku saabsan bandhiga seasonka labaad waxaana ka mid noqon doona sheegada frontman waa askarigii ciyaarta wadaye ayuu yidhi sameeyaa taxanahani isagoo hadalkiisa sii watana wuxuu yidhi xataa waxaa jiri kara season 3 waana arrin ka farxisay taageerayaasha taxanahan sidoo kale waxaa layna tusi doonaa cilaaqaadkii ka dhaxeeyey Il-nam oo ahaa number 1 ciyaarta markii la ciyaarayay amba odaygii wata nambarka koowaad iyo Sing Gi-han oo ah tooraha filimka oo dadka faaleeya aflaanta ay qiyaaseen inuu yahay aabihii Il-nam waayo bilowga filimka markuu ka soo xado ATM kaadhka hooyadii waxa pin code u ahaa April 4 26 oo ku beegan maalintuu dhashay sida kale hadii loo akhriyana noqonaysa April 26 bisha afraad 26 tashkiga abuurtay ayaa ah mar ay odayga iswareysanayeen in odaygu uu sheegay inuu wiil dhalay dhashayna 26 April xitaa caanimada taxanahan waxay gaadhay in laga sameeyo nidaamka ra'iisul maalka ah ee corrupt currency qiimaheeduna oo halkii senti u dhigmo ilaa $4.40 nasiib darro ilaa hadda lama bilaabin duubista taxanaha xilligiisa labaad ama season 2 balse waxaa la filayaa in bishan labaad la bilaabi doono duubista taxanaha oo dhammaystiran ah hawada la soo gelin doono sanadkan gudihiisa bisha October ee 2022 waxaanu soo gaadhnay intii u dambeysay muuqaalkeena maanta haddaba daawade meel kasta oo aad dunida ka joogtid haddii aad u baahan tahay Netflix iibah waxaad ka soo dalban karaysaa Instagram-ka ama WhatsApp numberka shaashada ka muuqda